ninku isla markiiba wuxuu arkay qadaadiye qadiimi ah oo dhab ah oo taal goob alaab qadiimi ah lagu iibiyo. Wuxuu iska dhigay mid aan dan ka lahayn wuxuuna weydiiyey iibiyaha qiimaheeda. Iibiyuhu wuxuu u maleeyey in ninku yahay bilow, markaas ayuu isla markiiba ku sheegay qiime dhan $10,000. Laakiin ninku wuxuu kor u taagay hal far wuxuuna weydiiyey inuu ku iibinayo $100. Kadibna wuxuu miiska saaray $100. Iibiyihii si farxad leh ayuu lacagta u qaatay isagoo u malaynaya inuu faa'iido fiican helay. Isla markiiba kadib ninku wuxuu tusay qadaadiicdii saaxiibadiis. Saaxiibadiis waxay eegaan waxayna yidhaahdeen waa been abuur. Markaas ninku wuxuu ku shubay casiir liin qadaadiicdii. Ilbiriqsigii xigay qadaadiicdii dhab ahaantii waxay isu beddeshay dahab. Isla waqtigaas milkiilaha dukaanka alaabaha qadiimiga ah ayaa soo galay. Wuxuu eegay qadaadiicdii wuxuuna dhoola caddeeyey isagoo sheegay in ninku helay hanti aad u weyn markan. Ninku wuxuu weydiiyey inta ay hadda qiimaheedu gaarsiisan tahay. Milkiiluhu wuxuu sheegay in xaraashkii ugu dambeeyey qadaadiic la mid ah lagu iibiyey $140,000. Dhammaan saaxiibadiis aad bay u yaabeen. Kadib milkiiluhu wuxuu u yeeray khabiir qiimeeya alaabaha qadiimiga ah. Khabiirkii isla markiiba wuu jeclaaday qadaadiicda markii uu arkay wuxuuna ku iibsaday $150,000. Intaas kadib khabiirku wuxuu ninka ka codsaday inuu wax qodo oo sameeyo. Markay baxayeen gabadhii waxay aad ula yaabtay sida khabiirku markiiba u garan karo in ninku awood u leeyahay qodista. Waxaa la ogaaday in khabiirku arkay nabaro adag oo ku yaal gacmaha ninka, sidaas darteed wuxuu hubay in ninku sidoo kale yahay farshaxan yaqaan sare oo wax qoda. Waqtigaas ninku wuxuu xiray indhihiisa wuxuuna isu diyaariyey inuu bilaabo qodista. Habkan ayaa aad uga yaabiyey milkiilaha dukaanka. Isla markiiba kadib qaab 3 cabir leh ayaa maskaxdiisa ku samaysmay. Dhowaan ninku si guul leh ayuu u sameeyey farshaxan qodis ah. Milkiilaha dukaanka aad ayuu ula yaabay wuxuuna si degdeg ah ugu yeeray khabiirka. Markii uu khabiirku arkay farshaxanka isla markiiba wuu ammaanay xirfadda ninka. Kadib wuxuu isticmaalay muraayad weyneeye wuxuuna helay dhowr sadar oo qoraal ah. Taas ayaa aad uga sii yaabisay sababtoo ah qof kasta oo leh xirfad sidan oo kale ah waa inuu noqdaa